Eyl waa magaalo micno ballaaran xambaarsan waa magaalo kuwa dalxiiska iyo tamashlaynta dhanka kalena waa magaalo laga baran karo duruus taariikheed dheer waa magaalo soo martay gacmo kala duwan oo muddo ku soo hoyday dhaxana uu fadhiyay sayid maxamed cabdulle xasan halgamaagi weynaa ee Soomaaliyeed waa magaalo uu xarumo ka hirgeliyay gumaystii Talyaaniga ugana tagay taariikhiyo kala duwan Eyl waxay caan ku tahay xeeb qurxoon oo ku teedsan buuraha taasi oo Rabbi ku manaystay khayraad baaxad weyn oo ugu horeeya kalluunka iyo aragoostada sirtii uu deganaa sayid maxamed cabdulle xasan qalcadihii kala duwanaa ee ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta iyo meelo kale oo taariikhiya waxaan marnaba ishu ka weecan karin durdurka biyaha rabbaaniga ah ee maraya toga degmada taasi oo dhinacyadiisa ay ku yaalaan beero qurxoon oo lagu beeray dalagyo kala duwan oo ay ugu horeeyaan liinta iyo bataatiga macaan Eyl waa Eyl balse waa degmo mudan koolkoolin ka warhayn ilaalinta ilbaxnimadeeda iyo goobaha taariikhda ah waa magaalo kugu kordhinaysa khibrad iyo waayo aragnimo muddo dheer aad sugaysay Eyl qiyaas ahaan Garowe caasimadda Puntland waxay u jirtaa 220 kiiloomitir oo laga aadayo dhanka bari waxayna u qaybsantaa labadan oo lagu kala magacaabo Baday iyo Daawad Baday waa halkaan waa ubuucda degmada Eyl waxaana ku taala xeebta iyo guryo qadiimi ah oo ay deganaan jireen shaqaalihii dawladda xilligii Maxamed Siyaad Barre marka laga yimaado Baday waxa la soo aadaa dhanka xaafadda kale ee degmada taasi oo lagu magacaabo Daawad xagga buuraha korona ku taala labada xaafadood qiyaas ahaan waxay isu jiraan 5 kiiloomitir haddii aad gaari ku soo safarto ku dhawaad 15 daqiiqo ayaad u kala soconaysaa labada xaafadood laakiin waxaa shaki ku jirin in wadadan ay khatar badan tahay maadaama lagu safrayo buuro laga dhex jeexay wado halkan waxa lagu magacaabaa ugu soo dhicinaa ku dhaafe waana magac ku yimi cabsi laga qabo in dhagaxaantu ay ku soo daataan wadada ay gawaaridu raacayaan laakiin haddii aan soo lugayno ku dhawaad 35 daqiiqo ayaan u kala soconaynaa labada xaafadood adigoo soo jeexaya tog inta toga saaran tahayna waxaad arkaysaa meelo kala duwan oo taariikhiya kuwaas oo aad u qurux badan halkan aan joogno waa halkii uu harsan jiray sayid maxamed cabdulle xasan oo kamid ahaa dadka halkan fariisinka oo ahayd sayid maxamed cabdulle xasan waxa uu kamid ahaa dadkii u soo halgamay Soomaaliya xorriyad yeelato waana meelaha uu taariikhda ku leeyahay sidoo kale waxa jirta meelo dhufaysyo iyo sidoo kale meelo uu saadka dhigto ahaan jirtay halkan ay sayidku markasta uu ku nasan jiray marka uu kala gooshayo deegaanada Daawad waa halkan waa magaalada rasmiga ah waxaana halkaan ku yaala xarunta dawladda hoose xarunta taliska iyo meelo kala duwan oo muhiim ah bilowga sheekadeena waxaynu la kulmaynaa Cabdiqaadir Saalim Axmed Baajubayr oo aan asal ahaan ka soo jeeda dalka Yemen balse awowihiisii dhalay aabe ee Saalim Abujubayri ayaa ahaa ninkii sayidka u dhisay sartan Daawad waxaana lagu tilmaamaa aabihii xadaarada degmada Eyl waana ninkii ugu horeeyay oo halkaan ka dhistay guri magacaygu waa Cabdiqaadir Saalim Axmed Saalax Baajubayri sawirka hadda aan arkaysaan waa aabahay Saalim Baajubayri waxa weeyaan waa ninkii taariikhda Eyl xagga dhismaha iyo beeraha ninkii keenay buu ahaa asalkiisuna waa Yemani wuxuuna ka yimi wadanka Yemen siina gobolka Xadarmood xataa wuxuu ka siimay qaryo la yiraahdo Xuruuba oo markiisu la yiraahdo Waadi Camid mudiiriyadu ay tahay Doocan maxaafadaduna ay tahay Xadarmood halkaas uu ka yimi waxayna ka soo raaceen wuxuu la socday aabihiis oo la oran jiray Axmed Saalax Baajubayri oo dhisay qalcadda sartan Daawad la yiraahdo waxayna ka soo raaceen doonta Minaa'ul Mukalla dekada Mukalla minadeeda ay ka soo raaceen doontu waxayna doontu u socdeen markii hore oo u wajahnayd Bambaasa magaalada Kenya wadanka Kenya Bambaasa marka Saalim wuxuu la socday Axmed Saalax waa aabihiis waxaana loo waday Saalim adeerkiis oo Bambaasa jooga oo guryo iyo dukaamo iyo kulaha ولكن عن أولاد له وحي هليسو كحيا سالم هدي أن دينتو معنا سي مالك يا حولهاس بعدين
doonyaha waqtiga jireen waxay ahayd doonyo shiraac oo yar oo aan maartay doonyo waaweyn aan ahayn ka bacdina doontii waxaa ku kacday darbad way kharaabtay oo waxa weeye doontii hadday cilad baa gashay macnaha tacadalatu safiila ama kharibatu safiila ka bacdina waxay soo gashay degmada Eyl naaxiyadeeda degmada Eyl markaa waxaa xukumi jiray wadanka u talin jiray ninkii la oran jiray Maxamed Abdullah Xasan sayidka ayaa loo sheegay haddii loo sheegayna sayidkii wuxuu yidhi doon baa halkaa timi baa layidhi oo carabi la socoto Eyl marka meeshii ay kaga soo gashay doonta inay xagga gabac ahayd iyo meelahan ku garamay laakiin soonaha Eyl bay ahayd sayidkii markaasaa loo soo kaxayey nimankii carabta baa loogu yeeray oo aabbahay iyo ay ku jireen Axmed Saalax sayidkuna dee wuxuu ahaa nin aqoon leh waqtigaa markii la fiiriyo taariikhda Soomaaliya oo wadamada carabta wax ku soo bartay oo ogaana inay xirfad weyn u leeyihiin xagga Yamantu xagga dhismaha siiba Xadarmowt taariikhdana caalamkana waa la socoteen Xadarmiyiintu wadanka Mareykanka xataa waxaa jira gobollo ay iyagu aad u dhiseen oo maartan oo aad u wanaagsan xagga Xadarmiyiintu xagga dhismaha sayidkii marka haddii loo keenay oo adaga aabbahay Axmed Saalax awogay iyo carabtii loo sheegay inay Yaman ka yimaadeen oo ogaan inay xirfad u leeyihiin xagga dhismaha wuxuu yiri sayidku ana in kaalmeeyo in saacidayo wadankiina inuu ku celinayo anigana waa inaad i kaalmeysanaha oo aad ii dhistaan sara cajiib ah oo martaqana aan gaalada iskala dagaalamo macnaha oo taariikh leh sara taariikh leh oo martaqana waxayna intifaaqad isku la galeen inay sarta daawad la yiraahdo oo hadda la magac sartaas ay bilaabeen taariikhduna ay waqtiga soo galeen iyo waqtiga ay sarta bilaabeen taariikhdu waxay ahayd 1900 1900 sartaasi marka bilaabeen 1904 way dhameeyeen sarta marka iyadoo 4 sano ku soconaysay dhismaha saalim wuxuu ahaa dhismaha walina Eyl kaliya maahan iyo talic xataa baliga guriga uu ka dhisay baa jira oo dabaqyada oo sida daawad u dhisan oo kale oo baliga xataa u dhisay saalimna de waxa weeyaan wuxuu ahaa dhismihii ugu horeysay adinku waa garan kadaan 1900 markii taariikhda Soomaaliya dib loo dhigo waa gumaysiga ka hor Soomaaliya maxay ahayd weeye aqoon ma haysaas markii anagu ilbaxnimadeena iyo xadaaradeena waa gumaysiga ka bacdi baan galnay magtay markii de waqtigaas uu yimi aniguna dalka waa tagay markii burburku dhacay waxaan ku tagay meeshu aabahay ku dhashay qaryadii xuruuba gurigu ku dhashay baa xataa tagay oo dhisna xataa waqtigaas ka daax kale oo uu dhaxalka ku helay xataa kuwa walaalaha xataa waa jiraan iyaguna ay tageen xiriirka hadda waa isla soconaa xataa waxaan isku la hadalnaa telefoonaan isku la hadalnaa adriiskayga iyagana waa haystaa iyaguna waa haysanaa laakiin de anagu runtii markii la dabacada iyo dhaqanka iyo beecada waxaan ku dhaqanay Soomaaliya oo kale beecada Soomaaliya iska jecelna oo mar kale Cabdiqaadir waxa uu noo sharaxayaa shaqooyinkii uu qaban jiray aabihiis iyo meelihii kala duwanaa ee uu ka soo shaqeeyay waqtiga odaga aabahaya ayaa ugu horeeyay macnaha dalagyo la geeyo oo beec loo geeyo odaga aabahay beeri jiray xataa waqtiga aan ku sheegayo shayga la yiraahdo Soomaalida wuxuu taqaanaa anagu waxaan naqaanaa duqus carabtu waxay tiraahdaa duqun Etoobiyaanku wuxuu yaqaanaa daafi waa canjirada balbalaan oo laga sameeyo waqtigaas aabahay beeri jiray fuusta iyo ku bixin jiray oo laga sameeyay jiray canjeelada iyo soorta iyo wuxuu ka sameeyay jiray bateetada waa dhoofin jiray gaalkacyo dhulkaas loo dhoofin jiray xilliga odaga xataa beertu aad buu u yaqaan xagga ma taqaana beeraha xilbadiisa u yaqaan beertu wax walba waa ka bixi jireen oo bateetada khudaarta iyo waxaas oo baa ka bixi jiray laakiin haddeertan dalaga ugu weyn oo hadda Eyl laga dhoofin karo oo beerahooda hadda loo karo waa liinta maartay ka tagana waa togi waadiga meeshu maraayay waxay leedahay ceelal waaweyn il weyn oo beeraha lagu waraabiyo inta markii loo hadla sidii biyahan u haysano iyo beeruhu dalagyada ka soo baxa Soomaaliya markii waxa ka soo baxaan laakiin dalagyo nagu dheeli tiran ma taqaanaa oo magaalada ku dheeli tiran tahay ma aan sababtoo hadda khudaarta waxa ka soo qaadanaa garowana dawaalkeen waxay ugu timaadaa waa koonfur sababtoo waxa ugu cana laba shay baa ugu caqabadaha ugu weyn oo beeraha haysta waxa kamid ah midalan aqoon la'aan xirfad la'aan oo beled mid kale runtii markii loo hadlo deegaankan beledkan waa meel cusbo weey dhana weey dhismahan waa dhismihii hore markii hadda guryahan dambe waxa cabiray waa Talyaaniga
waa guryahaas ka gaagaaban weeye marka dhismaha mantaqa sida daawad oo kale oo dhismaha Yamanta oo kale weeye waa dhismaha qaabka lagu garto weeye Yamanta oo kale adduunweynaha nin walba dhismaha qaabta Yamanta sartaas baa ka dhisan waxa kale oo ka dhisan sart oo ku taala gabba oo indoo hadda in xogaa inoo jirta waxay u dhisantay sida sarta daawad oo kale oo aabahay baa dhisay kaalak ilig meel la yiraahdo iyadana sala aabahay baa dhisay laakiin isaguna waa la duqeeyay waa la burburiyay qaabka laakiin waxa kan ilig waxay u dhisantay sida daawad oo kale waa burburay oo maartay وبابريي بدرسن أرور يبحثن مالي بغرن وبابريي بدرسن أرور يبحثن مالي بغرن الله بروك لي ما هبل لي ما حد يحوق لي بدعي نقالي الله بروك لي ما هبل لي ما حد يحوق لي بدعي نقالي نبكم بحايا بلليناي وابايودا hagaag daawadayaal halkan aan saaranahay hadda waa qalcadda daawad ama dhismihii daawad oo dhisay injineerkii weynaa ee Saalim sida arkaysaan meesha waxa ka muuqata runtii inay tahay meel da' jirto oo qarniyaal jirto oo dhagaxaantiisa haystaan wali saas ay tahay wali ma dumin gudaheeda waa sii mari doona insha Allah jaradeedu meesha waa looxyo weeye ma jirto jarada laakiin alwaaxa meel oo la fariisanayo saaraysa qaarkeed hadda waxaan joognaa biyaanadii labaad ama dabaqii labaad qolal kala duwan bay leedahay halka waxay leedahay daloolo laakiin qiyaas ahaan waxa isla hubka ayaa loogu talagalay in laga rido hoos baan soconanaa marka sarta qaybteedii ugu hooseysay waa tan waa u jeedaan albaabkeedii waa sar aad u qadiimiya qolal bay leedahay guriyuhu xataa waxa u dhisan yihiin waa si cajiiba waa daarta sayidka halkan waxay ahaan jirtay dawladda siyaad barre saldhig waxay ahayd ciidanku uu leeyahay degmada Eyl waxa inoo muuqda u wada jeedaan ama arkaysaan sida hadda kan oo kale waa oobigii dacwadaha lagu qulub jiray ama lagu feelgarin jiray kuwaas oo mataqaana dacwado 70aadkii 60aadkii ay ku qoran yihiin ilaa 80kii waana wax mataqaana marka qaar kood Eyl dacwadii ka socon jiray hadda markii maxkamadaha la geeyo cadeymo u noqdaan ama markii dambiye la baarayo kale waa kuwa laga soo xigto waa kuwa mataqaana dib loogu noqdo hadda warqadan hayno waxa ku qoran waa 18kii bishii 9 واجا صار القرآن وليه واجا تيب على القرآن تيب كل كيا الله القرآن وفرتي وسأقرأ سنتهاي يسويها بيسنتهاي ووجدان وأنا واحد حلقة واحد أبغى أنت كلين متقن الله بيو واحد أبغى أنت هاي إن الله بيو أو نسكت بريدو سيب متقن بريكم مال إنتك إيمان دون أي خدكتان واحد متقن يسوم مرين ده هو ده شاديان Eyl marka laga yimaado taariikhdeeda waxay caan ku tahay beeraha iyadoo sanad kasta laga soo jaro dalagyo kala duwan waraabka beeraha ayaa loo isticmaalaa ilo biyo oo durduraya kuwaas oo kala go' lahayn balse xeelada ku daharan halkan waa in beer kasta iyadoo si guud biyaha loo wadaago ay si gaar ah hadana u sii leedahay Sheekh Maxamed xamar oo kamid ah culimadiinka Soomaaliyeed oo aan kula kulmay mid kamid ah beeraha waxa uu uga warbixinayaa dalagyada halkan ka baxa iyo waxa ay beeraha Eyl kaga duwan yihiin beeraha kale waxaan ku suganahay taariikhi ah boorka la fiiriyo Soomaaliya dhulka taariikhda oo loo soo aado in ugu soo cibro qaato u baahan in dalxiis loo soo aado ayaan saaka joognaa waxaan ku suganahay hadda beeraha Eyl qaybo kamid ah beeraha Eyl taad u jeedaan harqorteeda iyo geesaha ka muuqda liin aan ka bixin dhulka intiisa kale oo ah liin dhanaanta oo waaweyn waxaa kaloo kamid ah dhulkan aad ku arkaysaa
oo kullay intii aan ragadan waraystay reer Eyl waxay dhaheen lagama helo bataatadii macaanayd oo Soomaali intiisa ka ay ka bixin laakiin halkan si waarida lagu keenay qarniyo hore ilaa haddana ay laga soo saaro ay ka baxaan waxaan leeyahay dhulkan waa dhul Ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakeeyay waa freesha aad kala soo baxaysid warda xaga kala fiirisid waa dhul xoolo daaqsin oo aad dhul barwaaqo ah oo xooluhu inta badan ay ku arkaysid geedii arigii lo'dii xoolihii kala duwan aad ku arkaysid marka ay waxay tahay waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda Soomaaliyeed uu siiyay laakiin aysan weli ka faa'iideysan marka ay hadii laamigaas aan rajeynayno Ilaahay noo fududeeyo la dhiso waxaan u malaynayaa inuu dhihi doono Eyl hal isku tago oo dhulka laga soo guuro dib ha loo noqdo oo dhulkii taariikhda ahaa sida Eyl Bayla Xaafuun dhulkaas taariikhda ana badiyana leh oo barigana leh oo Xaafuun iyo Bayla iyo aragteen waa dhul daaqsin waa leedahay wayna leeyihiin badiyana waa leeyihiin marka in intii magaalooyinka abaarta laga soo guuro in dib loogu soo noqon doono rajeynaya dhulkaas subxaanahu wa ta'aala xoolaha nool ayaa ka mid ah waxyaabaha Eyl ay caanka ku tahay isla markaana ay dhaqdaan bulshadu marka laga yimaado kheyraadka dabiiciga Eyl waxay horumar ka sameysay adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka dhismaha iyo wadooyinka magaaladana waxaa sanadadii ugu dambeysay ka socday kobac ballaaran oo dhan kasta leh عبد الفتاح موسى أحمد وهلية ومعمولها الدكسية سرية أيل وانان دليراء وقونيهانا وحنا كسو برتي جامعادها كويا لدلك دبديسا وحا كلا شيكيستي مرحلة دو اسكول كسو مري إيا هلك وهد التاغن يهي مغاي وعفتح موسى أحمد وحنا معمولها الدكسية سرية أيل اسكول كان دكسية سرية أيل سيغنتري وحا الله أساسي صدن كبشي سقالات كون سقال بقول سيدية اللي صدحي waxay maalinta xariga laga jiray mataqaanaa iskoolka waxbarashadiisu si toos ah u bilaabantay koor magaalada secondary way lahayd oo marka waqtigaas secondary-ga xariga laga jiray ka hor 2 sano ka hor magaalada secondary waxa loo sameeyay dad meelo kala duwan qaatay ku dhiganayeen saacadii ugu horeysay waxay ka baxday 1985 bay iskoolka ka qalin jabisay 150 arday 65 gabdhood iyo waxa weeye 95 حلال دول سديت شوي وأنتي وقت أسكت ميسي سديت في عضو بكم حي ممكن أتقانا وقتي كورسي سلم من الأسكول وكانت بنت اللي أنا مصور وده هم الصومالية دولة الصومالية ده بقضي واحد أسكول دي واحد وحرمي سيسكول لم يكن أتقانا هو والله مدها أسكول كواجي سهرة واحد عم يقول ده أقول عبد واحد لقول بس فلنتر أكتيفيتي ولا إسكا واحد قبصه ومضى متقنع إيمانكي مرقي مسكحة ومضى الصومالية الأورنجري هذه دولة الصومالية ممكن تصور وحرمي وعد الوفر إلى وضعكم الشمتي إلى وضعكم الشمتي إلى يمان هذا وحكي قلنا جميع تعدي سجالة هركل الدول المرحلة أو هركل الدول الصومالي سنة اللي قد ميسي برشيدي سو آدي مثلا نور كذا ميسا يسوي واحد ظروف تمر بيلك وعيسي وعائلة داعية مقالة الكفر مقالة كلاته وذلك أقوم كله عدد عاون كلا يكيرين أو ريسورس إيه وحياة استعمال كلام يريهين إيه واختيار أي وآخرين كلام أونلاين كي يكون طيب تقنا في شوي كلام أبوات أي وكافة واحد من بس كلمة يريهين ويريهين عندنا مرة بصاصة كانت محوي وسنة الإنسان بيسي برشين فسوق بعيسى سنة ده واحد كي قرأته سكوب وقاعد بعضهم بعض كلامي markaas waxay ka dambeeyay waxyaabihii ardaydu u baahnaayeen oo buugaagtii iyo wixii la mid ahaan iyagana dadaal badan baan u galnay dadaal badan oo ay ka qayb qaateen dadka community magaalada iyo diasporada iyo waxa weeye guud ahaan dad mataqaanaa wasaaradda waxbarashada iyo dad samafalayaal oo tiro badan waxaan waxa weeye iska bedelay sanadada ugu dambeysay performance-giisu hooyaad ugu fiicnaa ardayda waxbarashada deeqaha waxbarashada heeraysa dadka dibadiisa ay soo ardayda Puntland ugu sarreysa ka mid ah qayb ku lahaa insha Allah hadii ilaahay raado hadana waxaan rajeynayaa haweeney maalin ba in marwalba koobcay sameeyo inta uu ka sii kordho waxa dhigtaa arday 200 mataqaana haweeney meelaas arday gaaraysa barnaamijka baahidiisu ma dhamaato iskoolku wax badan baa waxa jira oo si loo gaaro waxbarashada hadafkii laga lahaa loo gaaro ama uu ardaygu xuquuqda uu haysto iyo waxyaabaha uu heli karo ardayga magaalooyinka jooga wax la mid ah uu hela
wax badan buu u baahan yahay soo daalan oo aad u daalan waxba cashar qaadan karin hay yimaado ama jidka ku xanuunsado rooga ku da'o ama biyaha ku soo dhaceen mataqaanaa meesha tooga oo burahaas dhibaato u keen rafaad badan bay waxay ku qabeen dadaal badan ay dad badan oo samafalayaal iyo community-ga iyo annaga iyo macnaha macallimiintii maamulkii ay sameeyeen gaari weyn baa hatan waxa way jira arday u shaqeeya oo xafada ka soo qaada oo geeya